isjiid muddo socday hubantilaan ay ku jirtay doorashada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 2020-2021 waxaa la soo saaray ama la shaaciyay habeen ka hor jadwalka doorashada Soomaaliya 2020-2021 haddaba shacabka Soomaaliyeed iyo xisbiyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxay uga dhigan tahay shaacinta jadwalka doorashada waxa warbixin arintaasi la xiriirta Muqdisho ka soo diyaariyay noogana soo diray Haajir Cabdulqaadir Nuur muddo dheer ayay soo jiitamaysay walaaca ay qabeen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan madaxda xisbiyada in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo waxaan dalbanaynaa doorashadu in December bilowgeeda ka daba dhicin marka waxaan leenahay in doorashadana waqtigeeda ku dhacdo dawladnimadiina la dhowro constitutionka la dhowro 17 Oktoobar ugu hore xildhibaan la soo doorto hatta haddii aragno waqtigaas inuusan diyaarinaynin annaga waxaan bilaabi doonaa process oo parallel ah oo Soomaaliya dawlad loogu dhisi doono haddii Ilaahay raasna doorasho ma dhacayso goormay dhacay noocee waaye yaa maamulaayo say yihiin lama yaqaan wali balse heshiis siyaasadeed ay wada gaareen madaxda dawlad goboleedyada dawladda federaalka ayaa habeen ka hor lagu soo saaray jadwalka doorashada aseenta kuraasta labada aqal caasimada ay ka dhacayso doorashooyinka kuraasta baarlamaanka iyo gudiyada doorashada dadban iyo midka khilaafaadka kuwaas oo tilmaam u ah in dalka uu galay doorasho waqtigeeda ku dhacda waxaan u maleynayaa in badan ayay dagaal ku soo jireen oo dhahaayeen kubadda waa Dr. Xasan Sheekh waxa uu tilmaamayaa inay dhamaatay walwalkii iyo dagaalkii muddada dheer soo jiitamayay oo ay qabeen siyaasiyiinta xisbiyada maantana ay u furan tahay oo kaliya inay tartamaan waxaan u maleynayaa in badan ayay dagaal ku soo jireen oo dhahaayeen kubadda hala keeno kubadda marka hadda kubadda la keenay niyada u qabowday marka hadda waxa waaye qalbiga u qabow ciyaarta waa u diyaar markii sabab ay u qaylaan ma jirto malaha farxad iyo waxay ku jiraan aan malaha celebration ku jiraan iyo casuumada oo hoos iyo sida loo ciyaar leh kubadda leena marka hore kubadda waa maqneed kubadda wala keenay Soomaaliya tiimamkii marka hadda waa in isbaaj gareeyaan yaa koow laga dhigaa yaa laba la dhigaa saddex laga dhigaa seel isu gilaa kubadda seel loo ciyaara xarfaanti tiimkii hadda la dhisaa marka leena marka hore kubadda waa maqneed Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga Haldoor ayaa sheegay in heshiiska siyaasadeed ay wada gaareen dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada uu dalka gaarsiinayo inay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay heshiiskan waa mid aad iyo aad ugu muhiimsan in dalka uu gaarsiiyo doorasho muhiimadeeda ay leedahay inkastoo doorashadii la sugayo qof iyo cod aysan suuragelin haddana xukuumadda dambe ama dawladda dambe imaan doonto waxaa laga filayaa inay si ambaqaadi doonto in kamid ah dadka reer Muqdisho aan wareysanay ayaa soo dhaweeyay heshiiskaas iyagoo ku baaqay in xildhibaanada loo soo xulayo baarlamaanka dalka si wanaagsan loo fiiriyo mar labaad iyo mar saddexaad waan soo dhaweynayaa laakiin baqaanahay waxaanu ka baqsanahay waxaanu arkaynay doorashadii koonfur galbeed ay ka qabateen waxaanu ka baqsanaanu arkaynay u jeednay gudidii doorasho ee galmudug loo magacaabay sidii la isugu doortay doorasho ma yahayn waxaanu madaxweynaha uga digaynaa tani maaha doorasho maamul goboleed waa masayrka ummadda Soomaaliyeed beeshii caalamka iyo goobjoog oo dhan baa soo weegaya Soomaaliya oo dhan baa doonaysa inay madaxweynenimada ku tartanto xildhibaano gacan ku rimisa lama rabo doorashada la aadayna waxay soo afjaraysaa doodii socotay ee ku salaysneed siyaasiyiintu ay aad u horkacayeen ee dhaqanku uu ka mid ahaa ee siyaasiyiin ganacsatada ay ka mid ahaayeen ee bulshada ay dadkoo dhan ay maaragtay ka mid ahaayeen taasay soo afjaraysaa wayna soo afjartaa runtii oo dee maantay wax la sheego ma yaalaan marka waddanku buuq badan iyo qaylo badan iyo dhib badan inuu galaan cabsi laga qabay ilaahay mahadiis waaya dad aan ahayn Soomaali oo fara badan ayaa waxay u diyaarsan yihiin inay ku biiraan xildhibaanada sida kuwa gaaloobay sida kuwa meelaha qaldan oo qaladka ku jira xildhibaanada waxaa diyaar u ah makhluuq fara badan oo doonaya Soomaaliya inay wasakh galiyaan inay wax daran ku sameeyaan inay meel badan ka soo galaan meel kastoo daloosha waa laga soo galayaa arrimahaas in la ilaaliyo baan ka digayaa xilliga doorashada oo ka harsan wax ka yar 4 bil magaalada Muqdisho kama jiro olole siyaasadeed
waxaana aamusan madaxda mucaaradka xisbiyada ee aad u naawilayay in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo dalka lama oga waxa isbedeli doona waxaase doctor xasan uu ifinayaa shakhsiga noqon kara madaxweynaha dalka ee doorashada soo socota anigu waxaan rabaa keliya inuu soomaaliya madaxweyne ka noqdo koow madaxweyne leh aragti dowladnimo yaqaan fahamsan gara kara dadkiisa taariikhdooda siyaasiga ah dhaqankooda siyaasiga ah dareenkooda siyaasiga ah diintooda هاجر عبد القادر RTN TV مقدشو